horto qof muslim ma tahay oo ilaahay la ilaaha illa allah qiraya أنا ah والله تاسم كان جواب كر والله ilaahay ما مسلم معها muslim ma tid ما أنا بيري أنا ما دهين قال ما دهين مسلم يعني اسكو كيردا عمر شيخ عمر اسكو كيردا ان شاء الله ilaahay ma aaminsanid أنا ah تاسم كان جواب كر يعني sabab maxaa iniga jawaab ممكن جواب كر والله يعني maxaa kalifay yani inaadan iiga jawaab أود أسمله أود أكو جواب مله iminka labadeena si fiican ayaynu isku حكونا yani waxaan ka wadaa yani qofku adoon ilaahay ahayn adoon buu noqdaa adoon u noqdaa adoomadu ilaahay abuuray qaar ka mid ah adoon u tahay sax ما تاسم aan كان caadi wada hadalno yani aan runta ka wada hadalno inaan gagabanin qofku wuxuu u bareero waxa fiican in uu magaranaysaa ku faano ما لكن aniga ilaahay baan caabudaa rabbigaygu waa allah waan ku faanaya haddii aad baphomet caabudo ama haddaad lucifer caabudo ku faan maadaama aad caabudade ممكن يكون عابدا okay maxaa caabudaa noo sheeg ilaan qofku ma noolaan karayo ilaa uu wax caabudo سؤال fitrada ilaahay siduu dadka u abuuray ayaa ah qofku inuuna noolaan karaynin ilaa uu wax caabudo ilaa uu meel ka tala qaato لكن مو كجواب كرو haa sababtoo ah fasax uma haysatid فصح أنا ويسن أم فصح ويستو تاشاكي كلا لكن ممكن جواب may yani dee waxaadan uga jawaabi karin fasax ma haysatid awoodaad uga jawaabi lahayd sax awood ma haysatid aad yani ma haysatid awoodaad ku jawaab أود وشيء كرا وحا عابدوي وحاس وشيء كرا okay لكن noo sheeg dee haddaad awooddaa haysato noo sheeg dhib ma laha لكن waan soo dhaweynayna مش شيء كرا مش شيء كرا لكن هذه محاجة دريم أنا yani aniga waxaa ii cad hadda markaad magaranaysaa saa iila hadasho waxaa ii cad in magaranaysaa aad adoon u tahay شيء كرا يعني adoon inuu ku adoonsado waayo wax kasta ilaahay adoon ayay u yihiin waana adoomo wax kastoo ilaahay abuuray ilaahay keliyata ayaa ah allah rab arab alilaah keligii unbaa magaranaysaa la caabudaa waxa ka soo sokeeya waa adoomo haddaad waxa ka soo sokeeya caabudana adoomo unbaad caabudaa adoon ilaahay unbaad caabudaa uu abuuray لكن أنا واحد جواب لكن أنا واحد جواب ama jin ha ahaado ama insi ha ahaado waxaa jawaabtaada ii caddaynaysa aamusnaantaada iyo ka wareegidda aad ka warwareegaysa jawaabta ee caddayn toosa ii ah waayo aamusnaanta waxay jawaab cad siisaa qofkii magaranaysaa garaad leh dad aanan magaranaysaa waxba garanayn laga yaabaa inuu magaranaysaa uu waxba fahmin laakiin dadka wax fahmaya si fiican ayay u garanaya هذا هدرتان dadka magacooda ii sheeg isma xag taqaanaa wax badan ayaan ka aqaana hal mar 2017 ilaa hadda ayaan research ku shiray aan baadhayay waa imsa sano 5 sano aqoon intee lagayaan u leeyahay umalaynaysaa marka 5 sano qofka baaritaan ku sameeyay wax yar oo ayagan taqaanaa aad ka taqaana ii sheeg adigaba iima sheegaysid waxaad caabudaysid waxaa kugu sheega aniga ma halkan uma imaanin dad badan oo jaahiliina ayaa jirta oo wixii qaadanaya haddaan ka sheekeeyo baaraya godkaa galaya sax dadkan mataqaanaa haddaa u sheegtid ilaa ani mataqaanaa waa kula jan qaada ani waxaa aqaana waa kuu sheegaa waa kula sii laakiin labadeena hadda waa isfahnay sax waan isfahnay labadeena sugaari waa saarana raggeedii sidaas ayaa fiican yani waxa fiican qofku inuu caddaysto waxa uu yahay mar haddiiba aad u badheedhay waxa fiican inaad caddaysato geesi iska dhig midda kuleeyaha waxay tahay ilaa haddeertaan wax qofaa caabudaa ama jinni aa caabudaa ama illuminaati aa ku jiraa waxaas dhan ku dhihin imaadan dhihin laakiin waa isfahnay labadeena laakiin adi dadkaa ka hadlaysa waa ku fahansana
weliba si fiican anigana waan ku fahansanahay halkaas ku jirta si fiican dadkan bal maxaa ka taqaanaa markaa intaad live soo gasho may kula qurux badnaatay waxaadan aaminsanayn inaad ka hadhadasho taas micnaheedu yani haddaadan aaminsanayn ilaahay haddaadan aaminsanayn qur'aanka haddaadan aaminsanayn diin may kula qurux badnaatay inaad ka hadhadasho taas micnaheedu waxa weeyaan wuxuu shaki kaaga jiraa waxaad aaminsantahay inayna wax saxa ahayn sax waayo qofku hadduu wuxuu aaminsan yahay ay sax tahay uu ku kalsoon yahay wax kale ma raadi sax ani ma runtii waxay tahay waxyaalahan mawduucan waa kusoo dhacay bas dadka waxay weydiinaa dadka hadalka isfiican ku wada hadalka dadka mataqaana mawduucan soo ku bilaabmadaa ka ay sheekeena mawduucana waxay tahay taatuugaya macnihiisa sababuu saas ugu sawiran yahay hanaga saarin kan aan hadda saaranahay hanaga saarin meel kale hanoo leexinin illuminati ma ku jiraa waxyaalahaas la isku weydiinaya markaas runtii waxay tahay ani diinta islaamka mataqaana waxyaala arab inaa ka ogaado horta runtii diinta islaamka si fiican oo aqaanaa laakiin su'aalaha aan weydiinayo jawaabaha isiinasiin mataqaanaa su'aalahan weydiinaya aan maskaxdayda marmar iska weydiiya aan dhahaa sabab horta dadka mataqaana muslimiinta ah ama sheekhayaasha horta ilaahay may arkeen mise rasuulka ama nebiga may arkeen indhahooda may saareen mise taabteen su'aalahaas camal waxaasoo dhan waan kasoo gudubnay hadda waxaan maraynay adiga maxaad aaminsan tahay iyo inagoo dhan isfahanay isku gaadhi fuulnay sax ani waxaa aaminsana ilaa hadda ma sheegin markaan isku gaadhi soo fuulnay waxaan kugu dhahay maxaad uga hadlaysaa ilaahay maad aragtay maba aaminsan inaa aaminsanay see ku ogtahay adiga soomaadan dhihin ilaahay indhaha ii saar taas micneheedu waa maxay ilaahay maba jira dee sooma laakiin indhaha inaa ii saart ma ii saari kartaa laakiin ani waxaa u kulaya okay haddaan ku dhaho kuma saari karayeed macnaheedu waa maxay ilaahay ma aaminsanin sax haddaa indhaha ii saartid markaas waa ku aaminaa haddaanan kuu saarina haddaan kuu saarina markaas sheeko kale waa sheeko kale maxaa ka wadaa mawduuc kale waa ma aaminaysid ma ku dhihin ma aaminaa laakiin mawduuc kale waa okay waad yara joogtaa waanad yar maqan tahay si fiican baad isku sii baranay labadeena barasho wanaagsan laakiin adi sheekooyinkaaga waxay tao caqli badan tahay waad mahadsan tahay aan kuu sheego ani waxaan kuula telin lahaa inaadan wada tegin hadda weli maadan wada tegin ma garanaysaa bilow ayaa tahay inaad soo yaro laabatan kuula telin lahaa tala walaarne see ku ogtaa inaad tegeen mise inaad dhowahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaa samay laakiin see ku ogtaa bas waa inaad tegi ama inaad joogno yani waxaad samaysid iyo waxaadan samayn ani awood ka weyn ayaan haystaa ma garanaysaa wax kasoo samayso taas waa ku respect aad wax kasta aad tahay ani ku dhihin waxaa ahay 66666 ma ku dhihin ahay Lucifer ani xitaa kaalama hadlin waxaasoo dhan laakiin aad magacooda la basa ii sheegtay magacooda xitaa kuma sheegin waxaa dhahday Lucifer ay dhahday tusaale ahaan ayaan ku dhahay haddaan caabudo Lucifer waxaan ku dhahayaa Lucifer aan caabudo laakiin ani waxa waxaan ma leexiyo hadalkayga toos weeyaan aniga ma leexiyo aad iyo aad talada aan ku siinayo labadeena hadda waa isfahnay talada aan ku siinayo waxa weeyaan ha u daadinin ha u tuurin oo ha u beeldaraynin nolol aad ku waarayso nolol aad ka tegayso mid aad ka tegayso ood og tahay 100% inaad ka tegayso oo aad ka dhimanayso ha u beeldaraynin mid aad ku waarayso waa ifahantay sax hal mid aan ku weydiiyo by the way aniga labadeena waa islaagnahay kama weyni inuu aqli badan tahay maanta koowiga qof ismalihi aniga iweydii su-aashaada
sababa dadkaas waxay dhahdeen dadkaas wax badan abaaris ay dhahdeen aye su-aasheeda markaas waxay tahay sabab arabtina u ogaatay dadkaas waxay yihiin si aan iskaga ilaaliyo shartooda kusoo weliba ma kusoo doonanaa qasab bay kusoo doonanayaan 1996 ay bilaabmadeen ilaa aqoon fiican uma lihin waxay istaageen aday 1900 xoogaagiin way istaageen mar labaadna way soo dhaabteen buugyaara ku soo dhaabteen ina dharka mataqaanaa dharka hadeertan adduunkan in mataqaanaa waxyaalaha isticmaalno adiga iskale wala socota taas adiga dhan ayaad ka aaminsan tahay anigana xaqiiqadooda dhabta ah ayaan ogahay garnisa annagu haddaan muslim nahay dhar haddaan xidhanayno bismillaah ayaan ku xidhanaa waxa sixir lagu soo mariyey iyo waxa sixir lagu soo tolay waxaasoo dhan waxba nagama qaadayaan haddaan cunto cunayno bismillaah ayaan ku bilowna waxaasoo dhan waxba nagama qaadi karayaan markaan seexanayno bismillaah ayaan dhahnaa aayatul kursina waan akhrinaa malaa'ig ayuu ilaahay noo soo diraana ilaalinaysa waxba nagama qaadi karayaan qur'aanka ayaan akhrinaa dhegeyso qur'aanka ayaan akhrinaa ruuxdayada ayaa ku noolaata waxba nagama qaadi kara haddii aanaan arkaynin ilaahay ayaa arkaya waxba nagama qaadi karaya awooddayadana awood la mida cid haysataa adduunka ma jirto haddaan muslimna waa fahanti sax bismillaah keliyata ayaa sharkooda burburiya waa laba eray biis iyo allah bes 2 words awoodda ku burburin karaysa shar kasta maxaad u malaynaysaa hadday qur'aanka la soo kala baxdo inay maxay samayn karayso laakiin dad badanaa ku jira oo muslimiin ah qofku hadduu halkaa aado muslim ma aha afka ha ka sheegto 5% islaam baan ahay 10% islaam baan ahay wax ka jira ma jiro mar hadduu halkaa galo waa suuqu galay waad mahadsan tahay ani waxaan ku dhihi lahaa dadka soomaalida waa dad aqli badan waa dad qur'aanka ku soo koray waa dad muslimiin ah boqolkiiba kuwa dalkii joogan ka hadlaya kuwa halkan jooga ama halkan ku koray ama aqoonta aanan lahayn kuwaas keliyata ayaa la siri karaya soomaalida waxaan ku dhihi lahaa af soomaali raashina waxba uma tarayo waxaan kugula talinayaa waad dhowdahay soo laabo aadaad u mahadsantay sheekh cumar salaadii subaxaya ii dhow aniga maasha allah erig khadar ka waran maxaa la yidhahdaa inaa nambaro maaragtay kala qaadano oo si goonina maaragtay isla xiriirno oo baxsigan sii wadno sheekh number sheekh cumar muhiim maaha iska dhahaye markada waa weyn tahay miya sheekada wallaahi muhiim ma aha waa aniga saan u arkaya qadarow ma sidaana rabtaa nolosha inaad ku dhamaysid ninkan wuxuu iga arkay oo maskaxdiisa bedesha ala yaabanaane ama wuxuu u malaynaa inaa ku jiro sababta keliya waxay tahay ani ninkan waxaa dhahay waxaa ahay ama diinta ahay waxaas ma ugu jawaabay markaas wuxuu dhahay haddii lucifer waxaasaa qof kala caabuda haddaa ilaahay caabudin micnaheeda waxay tahay addoon kala caabuda weli hadalka inaan la leexiyo inaan nacabahay waan kuu sheegay haddana waan kugu soo celi kuguma dhihin lucifer ayaad caabudaa ما لوسيفر dhahday lucifer camal tusaalayaasha bas okay adi lucifer maxaad ugu dhagan tahay waayo saddex tusaalaan dhiibay waxaan ku dhahay baphomet hadaan caabudo waxaan ku dhahayaa baphomet ayaan caabudaa
lucifer haddaan caabudo waxaan ku dhahayaa lucifer ayaan caabudaa allah haddaan caabudona waxaan ku dhahayaa allah ayaan caabudaa labada magacee kale maxaad uga booday aad ka dhexe ugu dhegtay sababtaa waxay tahay sabab lucifer mataqaanaani magaca shaydaanka okay baphomet ma taqaanid waa aqaanaa okay isaga maxaa u dhigi weyday isaga maxaa u dhigi wahaa way kala duwan yihiin labada keebaa darnaade haddaa ku weydiiyo aqoon inaan halkan bixiyo aniga uma soo gelin su-aal bas labada yaa daran ma garanayo ma garan si fiican u garanaysaa weliba ma garanayo waxa weeyaan cilmiga badhkii aqoon oo leedahay ku sali nebiga ku saliya nebiga ya اللهم صل وسلم عليه. asxaabtaan la hadlaya dadka islaamka muslimiinta ku saliya nebiga ayaan dhahay aniga ku salin karana waa ku salin karaysaa maxaad diid ku sali ku saliya ha sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ana saan kuu sheegay waa dawdahay ayaan ku dhahay waxaad tahay dhexda ayaad taagan tahay lugna waad la gashay lugna bannaankay ku taallaa marka adigoo wada maraya haddii aad lug dheeri la gasho waa laga soo saaraa waana la iska dhaqaa waxaan ku dhihi lahaa kala soo bax iska dhaq qof wanaagsan ayaa tahay soomaali ayaa tahay laandheere ayaa tahay nin addoonsan karaya ma tihid adiga wax addoonsatid mooyaane hore u soco